ninkeyga iyo gabadha ii shaqaynaysay ayaan aad uga shakiyey. waxaana ku shakiyey waxay tahay in uu ka dhaxeeyo xiriir. ilmahaygii sidoo kaleento waxaan dareemay in layga bedelay oo ayaga dhanba layga sii jeediyey. haddaba muuqaalka ku daawada bilaaw ilaa ay dhammaad, waana ka heli doontiin qisadan insha allah. wixii fikirkiinaana hoos noogu reeba, haddaan uga cusub tahayna soo dhawaaw. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha qaaliga ee ku xiran janalkayga Munaysa, meel walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajeynaa. fadlan haddii ay tahay markuu ugu horeysa aad janalkayga soo booqanayso, waxaa ka codsanaa inaad subscribe noo saarto, gambaleelkana aad furto si muuqaal walba uu kugu soo dhaco amaba u noqoto daawadaha ugu horeeya. waana mahadsantihiin sida wanaagsanaa mar walba ila socotaan. kommentidiin dhiirigelinta iyo ducooyinka isugu jiro iyo dhammaan su-aalaha ay soo weydiinaysiin iyo fikradiina quruxda badan aad iyo aad ugu mahadsantihiin. jazaakum allahu khayrna idin leeyahay. maantana waxaa idin wadaa muuqaal cusub, qiso aad iyo aad cajiib u ah. waxaan rajeynaa inaad muuqaalka daawataan, kadibna sidaa u aragteen iyo meesha cilada ay ka imaaday iyo sidaa u aragteenba kulley adiga inaad qaybta commentiga aa noogu reebtaan. asxaabtiina la sheer garee muuqaalka bilis asxaabay like-ta saara. waaba daawanaysiin like-ta maxaa iga xasdaysiin, like-tana ii saara insha allah. waana mahadsantihiin. haddaba gabadhan maanta qisadana la sheer gareynayso waa gabar ku xiran janalkeena ayay ku xiran tahay maanta. hore ayay ugu xirneed, maantana ilaah subxaana watacaala wuxuu u suurtageliyey ayadan inaan soo deeyo qisada ay ii soo dhiibatay. waxay leedahay gabadhan, aniga markeyga hore waa gabadha ka sheekeynayso qisadan, waa gabadhii shaqaalaha ahayd, waa gabadha ka sheekeynayso qisada. gabadhan waxay dhahday aniga waxaa ku noolaay Soomaaliya ku noolaay. aabahay iyo hooyadeena waxay iska ahaayeen dad iska xamaalata ah oo xoogooda ku shaqaysta oo muruqmaal iska ah. aabahay wuxuu ahaayay dhahday gaargacanle, dadka gaargacanka riixo oo alaabaha loo soo dhiibto, qudaarta ama maxay ahayto cuntooyinka qalalan oo kale loo soo dhiibto, kadibna guryaha geeyo ama bakaaraha kasoo qaado oo kadib degmooyinka kale u geeyo. yani qofka markaas badarka usoo dhiibtay ama adeeg usoo dhiibtay. waxaa dhacday tiri in maalin maalmaha ka mid ah aabahay oo suuqa bakaaraha dhaawac kasoo gaaray. dhaawacaas kasoo gaarayna uu la naafoobay, uu guri kusoo aruuray, uusan shaqayn karin. mas-uuliyadiina annaga ayay korka naga soo kortay. walaaladay waxay dhahday gabdho kale way ila dhashteen iyo wiilasha waxay yihiin dad reer leh oo xaasas leh oo gurigooda ayagana aanba ka badin karin qutulyoonkii ay usoo shaqaynayeen. yani wax siyaada ah markaas ay annaga nagu soo kordhin karaan ma laho. hooyaday waa qof iska waayeelay tiri. aabaheena sidoo kaleenta asagana waa qof waayeel ah. asagoo waayeel ah haddana waxaa ugu darsantay xanuunkii oo sabab u ahaa weliba dhaawacii soo gaaray. waxaa dhacday in noloshii aad iyo aad cariiri ay noogu noqoto. magaaladii waa ka raadinay shaqo fiicanna waa ka weynay, xitaa shaqo guriyaa raadinay dhahday, waa iskeeni weynay dhahday. kadib waxaa dhacday in gabar qaraabo aan nahay lay wado oo lay geeyo Kenya joogta. yani gabadhan Kenya joogtaa oo gabadha loo geenayo. Kenya ayay degan tahay. muqdishaa laga aroosay. markii la aroosay kadibna ninkeedii Kenya ayuu u guuriyey oo Kenya ayay deganeed. ninkeedana waxa uu degan yahay wadanka Canada ayuu degan yahay. Canada ayuu degan yahay. naagtiisa safar walbo ama sanad walbo wuxuu ugu imaadaa wadankan Kenya ayuu ugu imaadaa markay uurka qaado. ninkaana waxay dhahday waa nin yani waa hore wadanka Canada galay oo sharci weyn ka leh. kadibna ugu dambeyn yani wuxuu go'aansaday in uu usoo wareego dalka Kenya. kadibna uu mashruuc uu ka furto, ganacsi uu ka furto, meeshaas uu usoo wareegsado xaaskiisa iyo caruurtiisa uu usoo wareegto. waxaa dhacday dhahda markii aa gabadhaana u tagay ma ila dhaqmi jirnay tiri. yani in qof insaana ahay, qof bini aadana ahay, baahideeda ayay igugu tuman jirtay dhahday gabadha oo qaraabada aan nahay. baahideeda ayay igaga faa'iidaysan jirtay. ilmaheeda ma daryeesho. waxay dhahday ilmaha midka yar iyo kan weynba anaa waxaa u ahayd tiri maxay ahayto hurdada ka kicinaayo, xafaayadaha ka bedelaayo, cuntada karinaayo, dharkii dhaqaayo, suuqa kasoo adeegayo. wax walba waxay dhahday aniga qoorta iga saartay oo maxay ahayto mas-uuliyadeeda ay saartay. ilmaheedii hooyo ahaan yani ma usoo dhaweysato oo xaaladooda kama warheyso oo haddii ahaan leed xanuun kama warheyso. 24 hours waxay dhahday
aroosba aroos inay aado, xafladba xaflad inay aado, naagaba naaga inay la socoto ma ahaynay tiri qof yacni isleedaa qoftan waa qof la qabo amaba qof xaas ama qof yacni reer leh isma dhehaysid sida ay u dhaqmayso. siday saas u ahayd lacagta waxay dhahday mararka qaar way igu dhibi jirtay aniga laakiinse intaasoo dhan ma fiirinaynay tiri kaliya waxaan fiirinayay dadka dhibaataysan aan kasoo tagay, hooyaday dhibaatada haysato, aabbay xaaladda oo ku sugan yahay, wax walboo lay geysto dusha ayaan dhiga jiray tiri oo wax dhib uma arki jirin. waxaa dhacday leedahay in ninkeedii markaas uu go-aankii uu soo qaatay sidii uu ku yimid Kenya markuu imaaday kadib maxaa loo baahan yahay naagta ninkeedii ayaa imaaday inay isbedesho, caruurteedii usoo jeesato, gurigeedii iyo maxay ahayto yacni ma ahan wax walba in adiga shaqaalada aa ku deysid, in cuntada ninkaaga shaqaalada ay soo kariso, maxay ahayto xitaa dharkii oo ninkaaga uu xiran lahaa inay shaqaalo soo feereyso, yacni ma fiicno taas ahaan ani ahaan yacni waa kasoo horjeedaa. cuntadaada waa inaad ninkaaga u karisaa oo aa ogaataa wuxuu jecel yahay wuxuu neceb yahay, wax walba waa inaa adiga ka warheysaa. ilmahaaga waa inaa adiga hooyo ah u noqotaa ma aan qof kale, inaa mas-uuliyadooda qoorta aa ka geliso. waryaan idinku daalin waxay dhahday gabadhii ninkii markii uu yimaaday waa uu la yaabay naagtiisa sida ay u dhaqmayso, ilmihiisay u dayacday, si walba hadduu ula hadlo sankay ka hadlaysaa gabadhii, sankay ka hadlaysaa oo haddii hadal oo dho hadalkiisi qalad ay ku jawaabaysaa su-aal markii uu weydiiyo yacni way isdhibsadeen. waxay dhahday ninka anaa cuntadiisa u geyn jiray wax walba oo markaas quraacda haddii ahaan leed qadadiisii xilliga qadada guriga oo imaadaaya dhahda wuu ka qadaya, cashada sidoo kaleento wax walba waxay noqotay in uu aniga i weydiiyo, maxaa yeelay qoftii uu weydiin lahaa waa qof kasii jeedo oo asxaab iyo saaxiibo iyo maxay ahayto dana kale iyo howlo kaleento ku mashquulsan ayay noqotay. kadib waxaa dhacday ninkii su-aalahaas badan iyo waxyaabo badan markii uu baahan yahay aniga uu i weydiinayo in naagtan ay ka maseerto oo kadib aniga cadaadis ay saarto ee igu qayliso oo ay dhahdo haddii aad gurigan idab ku joogi weyso waa ka baxaysaa oo shaqadana waa kaa burinaa, in ay igu cagajuglayso. waxaan dhaha walaalay macaani aniga wax qalada kaama sameynin, ilmahaaga waa ujeedaa sida ilmo aan dhalay oo kale intaan kuugu koriyaa, caafimaadkoodii anaa ka warhaayay dhahday, midkii madax xanuunayo, midkii hergab ku dhaco, maxay ahayto midkii shubmaayo, intoo dhan anaa wada haayayay tiri, cuntadaada anaa kuu karinayay tiri, nadaafadda anaa kuu haayo, dharkii anaa kuu dhaqaayo. waxay tiri Kenya hadda magaalada Nairobi waa waxa ay degan yihiin, waxay dhahday dadka shaqaalaha markii ay shaqaynayaan dhaqistoo kaleento shaqaalo kala imaada oo dharka ka dhaqdaa guriga, aniga waxay dhahday laakiinse wixii oo dhan keligii ayaan isku qabanayo oo keligii ayaan ku ahay, intaasna ani ma fiirinaynay tiri oo waa ku sabri jiray. hadda waxaa igu darsantay in ay naagti ninkeedii iiga shakiso, maxaa yeelay ninkeeda ayadaa dayacday, anigana ninkeeda waa u roonahay, wax walba i weydiiyeen shaqaale maadaama aan meesha ka ahay waa ku qasbanahay in wax walba uu rabo anigii aan siiyo mise aniga oo igala soo xiriiro maadaama ayada aysan waqtiba u haynin. ninkii wuxuu arkay leedahay sidii ilmihiisa aan sidii ciyaalkayga oo kale aan ka dhigay, aniga waxay dhahday gabaraan ahay weligee ma guursanin, caruurna ma dhalinay dhahday, intaanoo dhan waxaa iga keentay dhibaatada markaas lacagtaa ugu baahanahay oo bishi aan qaadanayo darteeda intaa i baday dhahday, anigoo iska qalbi jilicsanay tiri oo qof xaasidna aana ahayn. sidiisay u aheeday dhahday muddaa kasoo wareegatay, waxaa dhacday in wiilkii markaas gabadhan qabay uu aniga sheeko ila soo wadaago oo dhaho gabar fiicanaa tahay, gabar maxay ahayto waxaa tahay edab leh, gabar maxay ahayto bini-aadamnimo yacni lahaa tahay, xaaladeydii i weydiiyey, familkeygii i weydiiyey, duruufta igu kaliftay iyo waxaas i weydiiyey, dhammaan waa uga wada sheekeeyey ay leedahay. kadibna wiilka wuxuu dhahay anaa ku gacan qabanayo, anaa ku saacidaayo, lacagta kaliya inta lagaa siinayo ma noqon doonto, insha allah bishan wax ayaa yacni kugu dari doona, anigana sadaq siya iigu noqoto. hadda wiilkan waxba ma haleynin, bas naagtii waxay keentay inay ninka ku buuqdo, maxay ahayto dagaal sameyso oo waxaan ku dhahay 24 hours ninkii ay ku qayliso, kadibna ay dhahdo gabadhan shaqada waa ka burinaa. wuxuu dhahay gabadhan ilmahaagay heesaa, ceebtaaday qarinoosaa, naag dhan reerkeedii ayada aan haysan karin oo loo haayaataa marka af aa ku hadashid malahoo yiri, ee gabadhan waa dahab uu dhahay, dahabna haddii mar uu kaa dhumo oo gacantaada ka baxo adigaa khasaare qabaa.
markaas way isdejisay dhahday gabadhii oo way aamustay xitaa iima tixgelinaysay tiri qaraabanimadeeni iyo waxeenii oo dhan iimaba tixgelinayso aniga dhan waxay iga soo qaaday dhahday addoon yacni ay iida soo gadatay oo sidee rabtay ay ka yeelanayso ayay iga soo qaaday waqti wuxuu socdaba waxaa dhacday in wiilkii uu aniga rabitaan xaggiisa uu isoo bandhigo waxaan ku dhahay dhahday aniga ma ka bixi karo rabitaan inaa iisoo bandhigtid gabadhaa qabtidna waa gabar walaashay ah oo gurigeeda igu soo dhaweysay oo maxay ahayto qalbigeeda ii furtay taasna ma samayn karo walaaloo iga raali noqo ayaan dhahday kadib wuxuu dhahaa aniga afaraa ilaahay ii baneeyey gabadhan ay adiga isku hooyo isku aaba matihiin kaliya waxaa tihiin qaraabo ayaa tihiin waana ku guursan karaa ilmahayga maanta qofta ii xanaaneyn karto waa adiga qoftaan anigana way i dayacday caruurteedana waa ay dayacday nafsadeeda iyo mustaqbalka ilmahayga maba ku aamini karo marka waxaan jeclahay in aan ku guursado ayadan xaqeedaan siinaa adigana sidoo kale xaqaaga ayaan ku siinaa si waalidkaagana aad lacag fiican markaas aa ugu dirtid xitaa ay noqoto in aniga markaas aa ila shaqaysid meesha aan ka shaqeeyo yacni dadka shaqaalaha oo meesha ka shaqeynayo aa ka mid noqoto gabadhi waxay dhahday waa kasoo fikiraa arrintaas aniga iga warsug waxaa dhacday in gabadhii buuq kicisay oo qayle ay kicisay oo ay dhahday maalmahan adiga iyo naagtan shaqaalada ah waa isku soo dhadhawaateen shuxshuxdiina way badateen sheekadiina way badateen marka waxaaba idinka dhexeeyo oo waa isqabteen gabadhiyaa waxay dhahday inay igu soo booday waxay dhahday madaxa wax iga dhufatay ee i riftay timaha iga jijiitay tiri ee dhulka igu garaacday dhahday wax gacana uma qaadinay tiri gacantayda uma qaadinay dhahday waliba gabadhan waa gabar iga weynay tiri oo walaasha iga weyn oo kale aan u tixgelin jiray dhahday gacan iyo far uma taagin kadib markii uu ogaaday ninkeeda gabadhii meesha ayuu ku furay oo wuxuu dhahay maanta laga bilaabo aniga naagteeda matid oo sidiyaa lagu furay markii la furay kadib maxaa laga rabay in xitaa caruurteedii ay qaadato ay dhahdo ilmahayga waan kaa qaadanaa oo waan baxaa bishina waxa igu siin karta igu sii ama ilmaha biilkooda bixi saas ma dhihin waxay tiri ma i furtay shalayta marka ay guursanaysa aniga anoo garbasaarkayga wata ay guursatay maantan anoo garbasaarkayga wato aa ka baxaa gurigan bas markay saas dhahdo wuxuu dhahay waa ka tagi kartaa dhib male meerkeedii waxeedoo sii sidii uga baxday gurigii waxay tiri anigii caruurtii aan kusoo harnay waxaa yacni aan ceebsaday tiri in ninkii aniga aan guursado hadhowtina ceebba ii noqoto oo sharaf darana ay ii noqoto hooyadayaa arrinta u sheegay dhahday arrinta markaa u sheegay kadib waxay dhahday hooyoy nasiibaa kusoo doontay gabadha walaasha ahayd oo qaraabada ahaydn dad a isugu xigteen ayada hadday saas kuu galaysay oo ninkaana ku leeyahay waa ku jeclahay oo inaa ku guursadaa rabaa edabtaada iyo dabeecad fiicnidaada iyo qalbigaaga fiican aan ka helay haddii uu ku leeyahay oo caruurtiisiina adiga ay ku barteen ay hooyo kaa dhigteen oo hooyadii dhashay xitaa hooyanimo aysan u aqoonin oo adiga ay hooyo kaa dhigteen hooyo ilmahaas bannaanka ku daadinin ee aan ku duceeyey ninka iska guurso ilaaha kugu barakeeyo famil barakale ilaaha kaaga dhigo midkaa ku baraarto oo ku barwaaqoodo ilaaha kaaga dhigo ayay ileedahay hooyadee aniga laakiis waa ii cunto milaadahay oo weli yacni ninkii in aan guursado aniga niyadeeda way isiin la-adahay hadda waxay tiri wiilkii guriga wuu nooga tagay oo wuxuu kusoo dhaxaa bannaanka ayuu seexdaa aniga iyo caruurta ayaa guriga joognaa oo gurigii ilmihii ku haayo ilaa iyo hadda wax go-aan aan qaataan la-ah waxaan leeyahay amay dadku ku dhahaan gabadhi ayay guri dunsatay ama maxay ahayto gabadhi ayay gurigeedii u quuri weysay oo ay kasoo baxsatay ama in laygu sheekaysto ayaan ka cabsanaa maxaa sameeya ah igula talin laheedeen wiilkan wuu i jecel yahay si fiicanuuna ii jecel yahay waalidkayga xitaa wuu la hadlay oo wuu iga doontay waalidkayga waxay dhaheen ogolaashadeeda keliya ayay kaaga xiran tahay annaga wax yacni shuruud ama wax diidma ah xaggeena ah ma jirto ayay leeyihiin ayay leedahay waalidkayga haddaba maxaan sameeyaa haddii aan guursado ma waxaan noqday qoftii reerkaas dumisay ayaan noqday misene qof yacni calafkeedii meeshaas geliyey ayaan noqday mana rabiyay tiri ilmahan in ay dayacmaan oo naag kale ama shaqaale ha ahaato ama naag kale oo hadda kadib yacni ninkan uu guursanayo oo isleeyahay ilmahaaga un ha kuu koriso yacni in ay muteystaan ma rabiyay dhahday maxaan sameeya ay ugula talin laheedeen maanta talo wanaagsana idinka rabaa anigoonan gardareysana anigoo gurigeeda iyo sharafkeeda iyo maxay ahayto ninkeeda isku haayo
ay dulmisay oo i dishay oo maxay ahayd waxay rabtay ugu sameysay ee i dulaysan jirtay tiri intaasna waxay ahayd waa baahida iyo maxay ahayd dhibaatada markaas aniga ay haysaan taas darteeda aan ayada usoo muteystay ayay intaasoo dhibaataa iigu geysan jirtay ma ahan qofka walaalka haddii aad lacag haysatid ama aad ka gacad saraysid in aad ku tumato yoomal qiyaamana waa laisweydiinaa qofka walaalkaaga haddaa ka gacan roon tahay asagoona ku weydiisanay inaa wax siisaa fiican marka mana fiicno in muxuu ahaye maalka lagu tasarufo si istizaa ama takabur qofka biniaadanka walaalka adiga kuu shaqeynayo inaa ula dhaqanto marka qisadeyni maanta meeshaas ayay ku eg tahay haddii aa muuqaalka ka heshaan asxaabtiina la sheer gareeya haddaa nagu cusubtahayna subscribe wixii fikirkeenaan hoos noogu reeb waxaa idinka sii codsanaynaa inaa muuqaalka like saartaan dad badan way daawadaan haba ii yaraadaan laakiinse like-toodii meesha ma taalo marka waxaa jeclaa inaadan like-ta iga ilaabin intaa muuqaalka mid lamid ah ku kulmi doonaan assalaamu calaykum waraxmatullah